نوكب حتى يسرى يميدن داورو الأقبال لي يصيدي دوغيك بحيا كويتو يسرى يواليقا كاكتل سيدي وبحكو يالإلي نوكب حتى يسرى يميدن داورو الأقبال لي يصيدي دوغيك بحيا كويتو يسرى يواليقا كاكتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walaalahayga Soomaaliyeed inta beeshkayga ku xiran iyo inta magaca Soomaali weyn ila wadaagta oo maqalkayga soo gaari doona iyo fiidiyoyadeeda walaalahayga Soomaaliyeed bacda salaan qiimo qaaya mudan maanta waxaan hayaa qodob ay Soomaaliyo dhan ku daashay saqiirkooda iyo kabiirkooda indhaha ka laabatay qodob waxaan hayaa culamadeena iyo caamadeena afka ka dabooshay oo dhabarka xijiyeen oo ay ka noogeen qodob waxaan hayaa Sheekh Daahir Aweys maantay agta dul saarayo digniin iyo canaan culus ka soo jeediyay kuna wajahan aktooreyna weyn Daahir Calasow oo ayaamihii dambe iska badaaye ummadii Soomaaliyeed qaraabadiisa iyo culimadiisa faraha la soo galay carabkii dheeraaday oo meel uu geeyo waayay oo xitaa maara looga waayay qaraabadiisii Sheekh Daahir Aweys oo yiraahday ariyadan soo socda war fariiso ummadda ka fariiso war waxaan ku leeyahay ummadda ka fariiso oo waxaan ku leeyahay oo yiri Sheekh Daahir Aweys nin loo digay lama dilin gacanteeda kuma soo gaartee haddaan culimo nahay habaarkeena waxaad ka heshaad leedahay haddaadan waxa qurunka aad soo dhigtay iyo waxa xun ummadda aad ka dayn weyso hadalka qurmuunkana aad ka bixin weyso beejkaaga waa digniin culus Soomaaliyo idil ila dhageysta ila daawada fartiintan culus oo ku wajahan Daahir Calasow ka timidna Sheekh Daahir Aweys daawasho wacan ilaahay ka baq intaas haddaad yeeli Soomaaliya anigu horta wax weeyaan hadda gacanteydu kuma gaarto laakiin waxa weeyaan difaac waartay ugu leeyahay difaac walaalnimo ugu leeyahay difaac adeernimo ugu leeyahay difaac maartay bahalkii muxuu ahaa maartay diineed ugu leeyahay difaac maartay Soomaalinimo ugu leeyahay difaac maartay bahalkii asxaabnimo ugu leeyahay oo waxa weeyaan intaan dhibaatadaanu dhicin oo rumo asxaabaan ahayn wasaaxintinu ugu leeyahay haddaad diido marka qaabka aan ku difaacayaan kuu sheegaya oo kaaga difaacaya adiga gacanteydu kuma gaarto hadday gacanteydu ku gaarto si waa gacantaan kaaga difaacaya laakiin haddii ay gacanteydu ku gaari weydo ilaahay waa kuu sheegaya haddaba waa nasiixadan ku hormarinaya joog haddaad diido Soomaalida waxay tiraahdaa labada cil guduudo sida badanaaba labada cil guduudo waxa la yiraahdaa sida subaxaad salaada subax dabadeed iyo maqribka dabadiisa maqribka salaada subax ay dhahan Soomaaliya iyo saxarka aroortii saddexdaas goor iyo marka quraanka khitibada muslimiinta oo dhan waa u duceeyay Soomaalida oo dhan waa u duceeyay إلهي بأوك إنتان كاساران كليغا حتى سجودك وهبارا إلهي إنو علامة حن كائفين وأدون بالك آخرة مارت بالدتك كما ما مجعل إلى كهوار لكن أدون كإني علامة إلهي كائفيو أو مارت مدتك كل برقاتان أو والله كوهبارا هد بجو قرابني ما نقد حيسا أيضا أديك لفت أدوكوه لنا قرابني ما نقد حيسا مسلمين نقد حيسا وحويان مارت وانا نقد حيسا ولا له وحان جوج ninkaas iyo rajiisa iyo kayfiyadiisana kale
ودد مسلمة دد ودادا واي دد مارت إلهي كبقى واي دد حوله دد كوح وتر واي نمن كاس كله وأدوكتها هاي شركتي بركات سيدي إلهي بسوع علي وأدوكتها حولود بسوع علي كله حني من كاس إلهي وأوجر جارا لكن وحن ربا إن أنا نقول أوجر جارو ومارت هدي إلهي وأوجر جارا وأوجر هاي لكن أنا جر جارو وأوجر هاي أنا جرجار أباهنتو إلا قاعد إلا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما واتك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وجرجار هدو قردري دي لقى قردري واحد من صحابته سأل وين هدو قردري هي هدي لقى قردري هي لقري هدو قردري هن قردر هذا لقى قبتاو قردر هذا لقى أتكقبني سامو ولا لو قردر هذا كاقبنا يا عاو مارت إلهي سبحانه وتعالى قلبتي وحويان ما أنت مكبر أروي أرنتاس ما أنت مكبر أروي marka walaalow marka inaan nasiixada ku hormariyo aan goostay علشان ila adiga laftada xaqaad ugu leedahay xaqa ugu leedahay nasiixadan ku hormarinayaa waxa weeyaan nimankaas iyo raggaas iyo ninkaas saad aragtay aad u fool xumaysay ka joog jooji waxa haddaad diido ilaahay baa og waxa weeyaan ilaahay baa og si niyya ah oo islaamnimo ah oo maartay oo xaq ah aan maartay bahalkii maxay ahayd asaas ku yeelay saddexdaas goor ilaahay ba og waliba sujuudan kugu habaara ballan waay haddaad joojiyo haddaad joojiso walaalkay aad tahay wixii kaloo waanaha naga dhaxeeya oo dadka dhan waa kaa celinaya muslimiinta oo dhan laakiin hadda waxa weeyaan nimankan waxa weeyaan si gaara aad u fool xumaysay si gaara aad u maagtaa si gaar ah aad maartay baa ku fool xumaysay si gaar ah colaadinaysa joog haddaba waa ku sheegay joog walaalo waxaan ka joog nimankaa ka leex nimankaas waxay bartay waxaan baranay in ilaahay u gargaaro ilaahayna u gargaari jiro waana u gargaaray laakiin annagana gargaaray buu yiri sumuuji marka meeshii marka adiga maartay aad difaaci lahayd inaad maartay baahta aad ku dhaqaaqdo inaad maartay fool xumaysid oo dumisid dabci maartay hawiyana waa ku hardamaad iyo jeel waa iraahdaay dadkooda maartay meel xumay dhigaan waxa weeyaan joog walaal hadda kiiskaas waxa weeyaan waxaan kugu soo dirayaa meel kale kala soo xiriir aniga mala way fiicnaad inaan xiriir kula leeyahay oo maartay wixii maartay qalad ka qaban kara ka qabo laakiin waxa weeyaan kiiskan meel kale lagu maro malaha meel joog haddii kaleeto adigay kugu soo noqonaysaa xagga ilaahay waa kaaga soo noqonaysaa anaguna maartay dhinkar awalan anaga hadda maartay gaal iyo muslimba waana haystaan oo hadda xaaladooda waa ka warqab gaal iyo muslimba waana haystaan laakiin waxa weeyaan ilaahan leenahay aan rajaynayno haddaan barino naga yeelay haddaad joogi weydo waxa weeyaan ilaahay baan kugu sallidayna ilaahay baan ku baryaynaa inuu naga kaa qabto ummaddana kaa qabto ilaahay inuu ku fool xumeeyo ilaahay inuu meel bahalkii maxay ahayd meel aadan ka bogsan in ilaahay kaa maago waxaasoo dhan waa noo yaala laakiin hadda ku dhihi mayne waa ku waaninaynaa joog daahir aweysoo hadalkiisii kusii socday soomaaliya oo idil walaalahayga soomaaliyeed qiimaha yaqaayaa mudan sheekh daahir aweysoo digniintii usii dheereeyey ama usii culuseeyey daahir calisow oo carabkiisii dheeraadoo maaro looga waayey oo ku yidhi war niyahow war caga dhigo war joog war dadkaa taqaani ma aha waysan kuu jawaabaynine anagaa kuu jawaabayne war meel joog war maxay kaa sameeyeen maquudkee kaa xirteen war telefoonoo idil ugu yar waxa la isugu adeegay soomaali u qabataa ma boos banaanay soomaali ummadda soomaali wax uga qabteene war ma dushay kaa saaran yihiin war maxaa ku hayo war maala tirtanta daa wax isku hayso una qabateen bay ku saareen ma waxbay kuu diideen warwaru la araguu yiri sheekh daahir aweyso ka yaaban ummaddii soomaali horey u yaabta shiiqow sheekh daahir xasan aweys oo hadalkiisii kusii socdo digniin weyna u soo jeediyey haddaad caga dhiga weyso haddaad joogi weyso waxaad aragto waxba ha iga siinin
ku wajahan daahir calisow dhageysi wacan dhammaante walaalahayga soomaaliyeed soomaalinimada iyo magaca soomaali weyn ila wadaagta iyo inta beeshkayga ku xiran oo walaalaha qaaska waxaan iga tegayaa dhammaantiina salaanta ugu qiibaha iyo qaayaha badan duniya aakhiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu ummadday uga gargaaraan wixii maarata bahalkii maxay ahayd ayagay xataa telefoonka laftiisay maarata dadka uga gargaaraan soo uga jeeda qofkii markaas ay ka baqayaan maahan soo uga jeeda marka waxa weeyaan niyow dadkan ka leexo dadkan mataqaanida ka leexo dadka aada buubsadayna maahana ka leexo iyagu kuu jawaabi maayaan waad ogtahay waan ogahay inaysa kuu jawaabay laakiin waxa weeyaan annagaa kuu jawaabayna ama rabbi xaggiisa lagaaga jawaabay joog meel wiilyo cagaha dhulka dhig waxaan ka leexo dadkaan ma taqaanid waxa weeye ka leexo dadkaan waxba kaama ay bi'in wax kaama qaabaan cidna wax kama bi'in xoolahooda iyo wixii ay qaban karaanna waa qabtaan wixii ay qaban karaan ma waxaad yani bal yani qaabdarradiina fiir maxaad waxaas u qabateen waxay rabaan ay maarata dadkii oo dhan ay wixii kala wareeg ma qabsataan yaa idinka hays sokortiyay la wareegeen waxay la wareegeen maalkii hadday wax idin keeneen maxay idinka dhibeen haddayse arkeen meel bannaan inay buuxiyaan maad buuxsataan adinka maa la tartantaan madax isku haddaad wax tihiin oo wax isku falaysaan tartan idinka celiyey ma ha keensanina idin dheheen ma xoolihiina ha isticmaalina idin dheheen ma waxa idinku sameeya bahashii la odhan jiray ee ixtikaara idinku sameeya kulligeetin oo kale maa beenta iyo arteed marka warhay ka baqniho ilahay waxaa iska dhaaf baalka interference ay ugu samaynayaan marka intaan rabay intaasay ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وبحكوا يا الإلين وكيف حتى يسرى يدنا